دواء صاحب يا سو دواء سو دواء صاحب يا شرقرية وحن كان لدينا برنامج لحديدة يسوع محلال بقى مسوح حرام وحن ربنا إذا عد يسوع حلال يهين وحنا السن ودهونا سن يهين نحن نقول لنا ليس أنا مركب برنامج يسوع كان لدينا سو دواء سعلمية وجد واحد دياري وعشان هذا القرآن الحديث يبان صحيح نمع وكو سلام يا عبا يا عبا كو سلام يا نمع سودو محمد بيقول لي بان هذا إنسان هستي أحمد سلمان بدء لحنك وحديد يقول لي بقى عستيسي وكاغا دابا سودو نمع دمان صاحبada ku jiro dhaw salaama heesaha ayaan ka hadli doonaa inay xalaal yihiin ayaan rabaa inay idaacada caawa iyada oo aad u jeedaan inaan diyaariyay barnaamijyo fara badan xadiisiyo iyo kitaabka quraanka kariimka intaba meel walba aan fiirinayna marka soo dhawaada share gareeya صاحبي السود هذا وتويو وحن جعلستي إن عن كهلا أو عن إذا عدين هيسو أيهن حلال قطعا ومركزي وحوي قرآن كريم مالنا يسود وسو أرورن هيس الحارن تنمي حديث مركب فيرنا واحد جري حديث جدا حديث أقول سيد حديث كان عائشة أمنا عائشة عليه رالينا عن لجوري مركب برهمشات سوق هذا إنه واحد جعلها إن كفى إيدي ستان إن وحي علماء رأيكير هذين أقواش لفت جود مدي الدنين لكن حديث كا أيضا قرآن كأسئلة كله الريان هو مهم بل أنه أجنو وعنو إيجينا وحن فيرنا إن مركا هرتا وحر مهم إنك كلفانتان وحلي هذا تحريم نهي فعندما يقال الغناء حلال فهذا لا يحتاج إلى دليل هدي اللي هذا هيستو وحلال دليل مباهنا وحد دليل أباهضة أو كلية وحلي وحرام وحاسة دليل أباهضة مركز هذا هدي أنفير نقول ككلا والغناء حرام هدي اللي هذا فهذا الذي يحتاج إلى دليل كاسا وحيا وح أباهن وحلي وحرام ayaa waxa la rabaa in daliil loo raadso laakiin wixii xalaasha amaba laga hadlinba marka hal mid ah waxa muhiim ah inaad fahantaan oo culimada Soomaalidana aysan dadka si fiican ugu fasirin waxa kamid ah waxa Ilaahay gaar leeyahay iyo wax Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam uu leeyahay Ilaahay wuxuu gaar leeyahay fa Mawlana azza wa jalla yahrim wa yuhallil wa ya'mur wa yanha Ilaahay waxa uu xalaaleeyaa uu xaaraantinimeeyaa ونهي أمره لكن النبي سلا ما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأمر وينهى ولكن لا يحلل محرم ولا يحرم محلا نبي لكن وحنا ما حلاليه وحنا ما حارنتني بل سووا أمر كليه أوكي والفرق بين الاثنين واضح
labadan shay si u kala duwan yihiin aan rabaa inaan idinla wadaago heesuhu inay xalaal qadcana yihiin aan rabaa caawa inaan hadda ka horna shiiqaygii macalinkaygii macalin cali raagaa ka hadlay culimo fara badanaa ka hadlay shiikh jabarti macalinkaygaa ka hadlay culimadeedii oo dhan baa ka hadashay laakiin anugu daba dhiga waxaan jeclaystay inaan idiin bayaaniyo iyadoo oo war la-aan ah ama nahyi fahuwa darfun amrun darfin lisamaan wa makaan mucayan haddaad aragti sideedaba wax la nahiyey waa amr xilli iyo waqti sida nebigu intuu lahay ahayd ilaahayse muxuu leeyahay fataxriimu amrun shamuuliyun waay amar ilaahay xaggiisa ka ahaaday amarka ilaahay hadduu waxaan waa xaaraan yiraahdo waa wax ilaahay xaaraan yiri waana wax markaasi wax waa abadiyin ilaahay si joogtaa u xaaraantinimay al'aan wa bacd yani wixii ilaahay markuu xaaraantinimeeyo haddaan xaaraantinimeeyey waana idinka xalaal sidaas baa ilaahay leeyahay laakiin nebigu ma lahan intaa marka axaadiista marka loo laabtana dhinacaasa ka fahmi kartaan idinka laftigiina waxaa umaleynaya ina wax ka qaadan kartaan arrintaa mathalan maxaa xaaraana qadlu nafsi xaaraana xaaraan markaa maqashiin 13 waxyaabood ayaa xaaraan ah oo qur-aanka kariimkana ku taala waa inaad fahantaan horta sideedaba 13 waxyaabood ee xaaraanta ahna heesuu ka mid maaha waa in aad wixii fahantaan heesuhu maba ka mid ahba 13 waxyaabood ee xaaraanta ah waxaan soo qaadanaynaa marka qoladan ku talax tegay ka hadlidda arrimaha ilaahay oo aad moodidba hadda in markii la yiraahdo ilaahay arrintiisa faraha ka qaada oo heesuhu xalaal iyo xaaraan iyo waxa ka hadlaysaan daaya aysan ogolayn inkastoo wadaadada qaar si kale u dhigeen fama sakata anhu fawaja ilaahay waxba kama uusa aamusin fahuwa xalaal ilaahay wax walba uu ka aamuso waa xalaal laana mawlaan casa wajalla lam yansa shayan ilaahay waxba ma uusa hilmaamay walaa yansa mana hilmaamaa ilaahay walciyaadu billah ilaahan ka maangalin ilaahay wax ma hilmaamo walmaskuutu canhu inamaa sakata canhu takfiifan ilaahay hadduu wax ka aamuso oo waxaas uu iska daayo waa wax xalaala un masalan dilka qofku waa xaaraan qofka inaan la dilinna waa xalaal qofka inaan la dilin lagama hadlina waxa laga hadlay qofka dilkiisa laga hadlay marka wax walbo xaraama laga hadla maana wix xalaala hadalba uma baahnaba okay وهذه قاعدة لا يختلفان فيها اثنان وحيابها أن ليسكو خلافين واي dadka marka ilaahay amriitiisa ku talax tagay waxa marka ku soo degta aayad quraan oo hore ilaahay uga sii digay wala taqulu liman tasifa alsinatukum mulka dib hada halal wa hada haram li taftaru ala allah kadib in alladhina yaftaruna ala allah kadib la yaflihun aayadan dad fahanteen oo ka dad fahmin aan waxa irin bil istaago wala taqulu ha orana liman tasifa alsinatukum mulka dib waxyaabaha carabiyadiinu jeclaadaan waa been haadhina hada kalaam hada halal hada halal kaas halal way ha oranina وهذا حرام كاس حرام ويهورننا على الله كدب إلهي كبان أورنا إن الذين كوا يفترون كبان أورنا هي على الله كدب إلهي كبان أورنا هي لا يفلحون كل بان هي ما ضد كله هيسو وحرام ضد إلهي كبان أورنا هي دنبيليان لا شيء قوي دونها هذا آيات القرآن كهراء الله وسعد ما إن القرآن لو قلت راح تقول أو مركزي وحوي إن laga been abuur hay'adaha marka ay soo daleeshadaan qoladan oo yiraahdo heestu waa xaraan dadka yiraahdahay heestu waa xalaale dadka yiri heestu waa xaraan waxay yiraahdeen min naas samee yashtari lahu alhadith dulil an sabilillah bighayri ilmin wa yataqadaha huzuan walaa'ika cadaabun muhim ayadaas waxay leeyihiin min naas qofka man yashtari ka ganacsanaya lahu alhadith dulil an sabilillah jidkii inuu ka dhumiyo bulshada bighayri ilmi la'aan wa yataqadaha huzuan kayasha walahum waxay leeyihiin walaayka kuwaas lahum wixii cadaab muhiim okay suuradan hees kuma soo degin ba waxna kama qusayeen heesba ayagu markii aad tiraahdo heesa xalaal ah hees waa xaraan aayadan u soo dalisay aayadan sideeda lahawal xadiis yaa leeyahay halkan xadiiska marka laga hadlayo waa sheeko xadiiska kii xumaa waa ka soo qaadba heestuna af carabi qinaa lagu yiraahdaa waxba kama qusayeen asfi kuma noogama muuqato meesha muusiqa la yiraahdo af carabi noogama muuqato aayadan marka maba ku soo deginba wax la yiraahdo hees aayad quraan oo hees ku soo degtay ma jirto aayadan kuma soo degay aayadan wuxuu ku soo degtay lin la yiraahdo nadar ibn harith ayay ku soo degtay
xilligii uu soo baxay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu joogo mako ayaa nebigu wuxuu ka sheekay jiray qoom luud iyo huud iyo shucayb iyo qoom ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nebi nuux calayhi markaasaa nadar bin xaaris oo dhulmareen ahaa oo waxa weeye soo maray wadamadan ku yaala rom iyo faris iyo tegay ayaa dadku wuxuu uga sheekay jiray farisiyiinta iyo boqorada iyo sida ay yihiin markii uu arkay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa aayadan ayaa kusoo degtay oo min annaasi ma yashtari lahawa alxadiisu ayuu leeyahay dawlilla can sabiilillah bigayri cilmin wayataqadaha huzun ulaa'ika lahum cadaabun muhiim nadar bin xaaris ay kusoo degtay dadkuna been u sheegi jiray oo u dhihi jiray waxaan ahay nin wax badan og wax nabi maxamed idin sheego mid lamid ah idin sheega oo taariikh ah u dhihi jiray okay xadiisyada markaa diidani maxay ahaayeen xadiisyo fara badan oo xadiiska marba haddii aayad qur-aana wixii aysan xaaraan dhihin sidaas xalaal ku yihiin qaacidada hore ay idiin sheegaana ku ogaa kartiin kaliya ma aha xitaa inaad wadaad daba kacdaan oo weydiisaan wadaad heesuhu marka waa xalaal sideedaba heestu waa shay wanaagsan muusigada markaad dhegeysanaysaan oo khaasatan heesaha qaraamiga aad dhegeysanaysaan waxaad dareemaysaan gacalo wanaag lagamana yaabo qof heesaha dhegeystahay inuu mar isqarxiyo wax ka filina waa waxaan suuragal ahayn heesuhu waa wax wanaagsan heestii maxamed mooga hadda dhegeysanayseen waxaan rabaa marka inaan soo qaadano xadiis oo caaisha ay iyadoo oo heesaysa ku saabsan فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الله كرر لها أن أبا بكر دخل عليها أي أسوق له عندها أكتيدا وحق هذا جاريتان لبا جاريدود لبا قبضوا وري وشغين هي يجوي تغنيان هيسا هي وتضربان قراعها هي موسيقى حوغاير أيوم جدبينها هي وموسيقى وحلو قراعها هي عائشة iyo laba gabdhood oo jaariyada guriga u shaqeynayay ya magaranaysaa waxa uu soo galay Abu Bakar alayhi raalliga anhu وتضربان قراعها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا مزج بثوبه أسوأ مريض اسكو ددهيه أو كددن فأنترهما مركاسو حوجا هنددو يري جوجي وحاودان النبي هردي فكشف الرسول الله النبي وحو اسكفيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه اسكفيدي وقال وحو يري دعهما كتق يا أبو بكر فإنهما أيام العيد أبو بكر دا حل عيد ده الوجراء دا قبله هاي ساري وحديث حسن عائشة نورسي عليه الصلاة والسلام مركا آيات قرآن مربع حديثاً بينين أو أيسان بينين أيسان حارانتنمين سوري أيسان آرانتنمين هيستو هو حلال هل كان حديث أكو أركتان وأركتا حديث كاس داو جدان وحديث كا هذا واي عائشة حسنة أوكي مركا waxyaabaha muhiimka ah waxa rabaa inaan kalo idin sheego hadda koor waxa jira marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa iska diiday cuntada qayb kamid ah ayuu yiri cuni maayo ilaahay marka uu laad wuxuu ku yiri yaa ayuha nabiy lima tahrimu ma halala laka tabdagi marlaataka aswaajika wallahu ghafurur rahim yani macna aaya waxa arkaysa nabigu amr basiid ah oo anaga hadda marka fiirino oo cunto ayuu iska daayay markaasaa la yiri iska xaaraantinimaynin waxaan xataa asxaabtiisii iyo dadkina ma uusan amrin oo ma uusan oran cuntaas cunanina marka waxa la leeyahay yaa ayuha nabiy lima taharrama ma alla laka tabtagi marlaat aswaajika wallahu ghafurur rahim dadna aayad quraan ayay fasir kale inta saareen ay dadku leeyihiin heesaha dhageysanina iyo lugooyo ka wada haba yaraatee waa u jeedaan aniga waxaan rabaa inaan idin la wadaago waxaas oo dhan ka diyaariyay waliba maadaama wax ay xalaal yihiin oo heestu ay xalaal tahay oo qadcan sida wax markay xaraam yihiin ayaa waxay u baahan yihiin raadin fara badan iyo baxthi in lagu sameeyo laakiin wax marba haday xalaal yihiin ma baahnaba waqti badan waxaas oo dhan ka qoraaniga waxaas aad aragtaan ka qoray oo carabi iyo isku jira Soomaali arag waxaas oo waraaqa dhammaan waxaan isku keenay in xalaal yihiin aniga oo raba in xaqiiqada iyo waxa jiray rasmiga aan ogaado waxaas u jeedaan oo fiiri culimada dhamaan wada fiiriyay meel walbaan dabagal heesu waa xalaal cid ay weydiinaysa lama arko marba wixii hadda quraan kariibka ku cadeyn oo aan looga hadlin oo ilaahay uusan soo hadal qaadin xalaal qadcan waa cid la weydiimaysa waxaan rabaa marka in aad ii sheego dadka Soomaaliyeed oo heesihiina waa inaad dhageysataan murtidiina dhuuxdaan fahantaan
arrintan oo waxa weeye carabnimadu ku jirto oo dadka la goynayo oo diintana lagu gambanayana in la joojiyo oo bulshada waxa weeye heesahooda iyo murtidooda iyo fankooda lagu ababiyo hooyooyinka iyo dadka ilmaha leh qaasatan dadka qurbaha jooga waxaan qabaa inay ilmaha heesaha baraan oo weliba ilmaha ka dhageystaan sida quraanka intaad kula ordaysaan marka ugu horeysa ka hormariya oo heesaha ilmaha fahansiya micnaha uu leeyahay fahansiya cunugu waa inuu afkiisa fahmaa marka hore afkiisa marka uu fahmo ayuu wuxuu fahmi karaa quraanka laftigiisa cunugan af la barin ayaa wax lagu ordaa gudus quraan ama aan sabdiya xad dig ku leeyahay ilmaha afkooda bara heesooda bara waa xalaal cidna ha weydiinina waa taas anaa idin iftooday intaasoo dhammaan raadiyey waa daba galay waqti badan aan galiyey qofkii dood ka qabana waa soo qabanaa haddaad diyaartiin waana idin salaama aad baan idin salaamaya saaxiibayaal kunii ku jir